dadweynaha iyo saxaafadda dhammaan dadweynaha reer Somaliland gudaha iyo dibadba daawanaya aad iyo aad baan u salaamayaa. bismillaahi raxmaani raxiim. jawaabtu baan ka bixinayaa shirkii shalay aad warbaahinta ka dhageysanayseen. intii aan siraa waa in aan ku qaban oo ka jawaabaya inta dhaafi karna oo dhaafaya. gudoomiyaha cirka shalay wuxuu shirkii uu abaabulay ka yidhi guddiga fulintu waa hay-adda ugu sarreysa xisbiga. waxaan leeyahay gudoomiye aan ku saxee qodobka 16 farqadiisa 13 ee farqadda saddexaad qodobka 16 farqadda saddexaad ee xeerka xisbiga wadani waxay leedahay shirweynuhu waa hay-adda ugu sarreysa ee xisbiga, waana shirweynaha labadeennaba laynagu doortay si siman laakiin kala sarreysa. waxa ku xigaana waa golaha dhexe, hay-adda ku xigtaana waxa weeye fulinta. waa sidaa horta jarajarada xisbiga ku saxee. waxaad shalay u yeedhay ood shir u qabatay tiro aan dhammayn oo aad ku sheegtay guddigii fulinta oo dadkii intii badnayd ay dibadda ka joogtay, qaarna kaa baxeen. runtiina aad iyo aadaan uga xumahay inaad xisbiga dhexdiisa kala naqaysato oo in adiga ku ogol aad shirka ugu yeedho. waxaa guddoomiye ama ummaddaba u sheegayaa maadaama arrinkaasi uu yahay arrin aan waafaqsanayn shuruucda dalka, shuruucda xisbiga, aan meella ka waafaqsanayn, meella aan ka soo gelin. arrintaa uu dhoobdhoobay ee uu sameeyey guddoomiyuhu waa khayra sharci, umana hoggaansameeyo, mana ogoli. waxaananu maraynaa waxaanu yeelayana gadaal baan ka sheegaya. lakin waxaan sii sheegayaa inaanu arrinkaasi sinaba sharciga Somalilan iyo sharciga xisbiga meel aanu ugu lahayn. guddoomiyaha cirka wuxuu igu eedeeyey inaan isku diraayo degaanida xisbi. halkaa waxaan leeyahay guddoomiye beesha ballegubeedle iyo cabdiqaadir jirde waxaynu kula heshiinay inaad guddoomiyenimada ku wareejiso marka doorashadu dhacdo. taasina isku dir maaha ee waa garsoor. degaanka bariga gobolka Sanaag waxay xaq u leeyihiin haddii xogayaha guud oo aniga ahi aan xilka banneeyo, sabab kastaan ku banneeye, ama aan meel gaadho, ama aan fasax qaato, ama aan dhinto, ama aan xanuunsado, ama sabab kasta ha timaadee in lagu wareejiyo xogaye ku-xigeenka Jamaal Cali Xaamid oo xaq u leh in la dhaafiyana aanay ahayn. haddii cirho guddoomiye haddaad inay yar jeebadda ku soo qaadatay ood adeer u tahay oo aad tiri xilka ku wareejiyo fasax gal, ma xaqsoor baad samaynaysa? ma Somalilan baad dhisaysa? ma xisbi baad dhisaysa? soo may hayn xisbigu ha burburo ha lagu kala tago. inankaad adeerka u tahay markaad nin shirweyne lagu doortay aad leedahay ku wareeji, guddoomiyana aad tahay madaxweynena dalkaad ka sugayso, saaxiib gaarana aynu nahay, intaa dhaafi maayo. waxaad markaa halkaa ka doonaysa adaa garanaya. guddoomiye waxa kale oo uu igu eedeeyey inaan turxaan kala dhex dhigaayo xisbiga iyo siyaasiyiinta. halkaa waxaan leeyahay guddoomiye waxaan sheegay rag siyaasiyiin ah oo ka mid yahay cabdiqaadir jirdiye gaboose oo xisbiga ka tirsan oo tacab geliyey oo awood ilaahay u siiyey inay guul u keeni karaan doorashada, kuwaasoo soo hadal qaadkoodu sida dhimbiisha kuu gubay. gaariye ayaa laga hayaa. waxaan u hubaa oorqabad biyo kuma qurquriyaan, anna khayro mooye qasab kuma balweyn karo. waxaa la yaab leh arrintaa sida aad u dhigtay adigu guddoomiye. runtii waxa weeye shalay markii aad tartantay waxba iskamaad hagran. taas ayaa keenaysa inaan maanta aaminsanahay inaad guul u keeni karin xisbiga, inaad guuliga xisbiga u keeni karin. tii shalay aan arkay ayaa keeni karta. horena waanu sheegay laxajeclo xisbiga aan ka qabo ayaan markaan arkay inaad xisbigu guulaystay, laakiin guuldarrada adigu aad keentay, adigu aad si toosa u keentay oo cadaymihii leh oynu aadna og tahay anna aan ogahay, aanan jeclay inaynu bulshada gaarsiino, inaan u yeedho ummaddii dalkan iyo siyaasiyiintii xisbiga ku jiray ee dalkan badbaadin lahaa. waana laxajeclo, waana hiil adigaan kuu hiilinayo, anigoo og adiga iyo aniga ragga inala joogayba inaan tacab badan u soo gallay xisbiga.
taageerayaasheenina maal iyo cod iyo laynba ay in badan ku daaleen maalin walba inay dhacaan ayaan aniga nafteyda gubaysay arrinkaa igu kaliftina taas ahayd guddoomiyaha cirra wuxuu igu eedeeyey inaan ka soo horjeestay go-aanka xisbiga gaadhay ee tusaale u soo qaatay d b wed iyo saldhigga militari ee berbera waxaan leeyahay guddoomiye aan ku saxee anigu waxaan u jawaabay dowladda soomaaliya oo dalkeenna cadow ku ah oo tidhi somalilan lama maalgashan karo ma jiri karto wax jira maaha inaad dhibsatay ayay u eeg tahay jawaabta soomaaliya balse mawaadin dalkiisa jecel ayaana arrinta b weld eed igu eedaynayso eed i leedahay marka soo qaato aad leedahay berbera dekedeeda maan bixin golayaashuna ma asixin waxaan u arkaa inay tahay dembi qaranka aad ka gelayso waa dembi waa khiyaamo qaran waxaad ku baaskaraysay 860 cod ayaa golaha wakiiladu ku baaskaray qoraalna waad ku bixisay abudabayna 2 goor baad la kulantay tiraba intaas hubo anigu d b weld warbaahintana waa laga wada dhegaysanayaa ummadduna way wada og tahay ummadda sidaa ugu sheegayso warkay sidaa u hayaan aad leedahay maan baaskarayn sideebaad madaxweyne uga doonaysaa waa wax la yaab leh eed weliba u leedahay cod baa keenaya maanta miyaanad ogeyn dadku inay naga caqli badan yihiin oo aan la khiyaamayn karin ummadna hoggaamiya waa ninka run ku wadee nin been ku wadaa hoggaamiye ma noqdo waxaan anigu fadhiyey shirkii gurigaaga ee golaha wakiilladoo dhammi ay go-aan ku gaadheen in laga hor tago ninka habeenkii burburiyee jabiyey sabab kasta ha ahaatee ee aroortii xildhibaanadii oo dhammi unanimus ay isku raaceen in loo oggolaado adigu ahaaye aniga muu hayno golaha wakiillada maan hayn nin kalena muu hayn 3 nin baa diiday cabdiqaadi jirde saciid cilmi rooble iyo qabille waa taariikh qoraal baa lagu hayaa muuqaal baa lagu hayaa hadal baa lagu hayaa waxyaabaha noocaasna waxyaabaha aan qofka bini aadmigee mustaqbal siyaasadeed doonaya aanu dafirin bay ka mid tahay arrinta ku gubaysaa taama waxa ku gubaysa soomaaliya u jawaabiddeedii aan abtiga u ahay ismaaciil buubaa aad baan u hambalyaynayaa taladiisi waa la qaatay aad baanaan ugu hambalyaynayaa inta hawshani socotayna in badan buu isiri waxqabooji abti waa la qaatay taladaadii go-aankaana waa la gaadhay waanad mahadsan tahay laakiin waxaan kuu sheegayaa cirro waxaan u sheegayaa walaalow in badan baynu soo wada noolayn dad walaalaa baynu nahay waxaan jirin ummadda inaad u sheegta ka xisho somalilanna nin ilaahay abuuray oo burburin kara oo aanu ka yeelaynaa ma jiro waxaynu isku haysanaana taasaa bilow u ah aniguna somalilan kursi iyo waxaan siisanayaa midna ma jiro halkan dhiig baa lagu shubay nafaa ku dhintay ummad dhan baa ku burburtay maalkii dadku lahaa baa ku rogmaday haddaad adigu fiinland iyo raashiya joogtood ruushka fadhiday rag baa xabaalahoogii baad ku dul ciyaaraysa ood guddoomiye ku tahay ood murashax ku tahay waxaanu ku leenahay u soo noqo xaqiiqada waddanka difaac xisbi ood magaciisa haysataa somalilan xaqiiqaa noqo oo difaac haddaad diiddo cid kugu anigu xogeeyanimo waxaad iiga codsatay inaan tagana tegi maayo halkaa dhaafi maaye nin waxaa yeelayana mayhi nin ku dhaqmaayana mayhi labadeennaana gaar isku og waxaanan jecelahay wixii walaalkay gaar ii yidhi inaan dibadda keenin laakiin waxaan uga digayaa waanu sognahee inuu somalilan difaaco sida taageerayaasha waddani oo dhammi ay u difaacayaan dibad iyo gudaba uu ka hadlo doorashooyinka waxyaabahan ku weynay waxa weeye wuxuu ka hadli kari waaye inuu somalilan yahay isagii taageerayaashiis waa uu caddayn kari waaye waanu caddaynay annagu maanaan ahayn kuwa la dooranaya ninka la dooranaya isagu taana intaasaan ku daynaya waxaan walaal kaaga tegayaa kolley waynu surrannaho dee waad soo boodee somalilan baabaynaa ku kala tegaynay somalilan ninkii ka hor yimaada waan ka hor imanay soomaaliyana waxaanu ka xignaa iyo cid kastoo cadowa dagaal baanu ka xignaa ninkii sidaa aanu xisbiga ku wada jiraynana ahlan wasahlan ninka kalena shirweynaanu isla gaareen taas waa taa wuxuu ka hadlay oo isaguna in badan igu eedeeyuu eed ka dhigay runtii inaan arrinta xaysibo lagu qoray anuu aan warbixin siiyey xaysibo waa wargeysa la ii sheegay waxa weeye baan u jeedaa website weeyi
anigu habeen horaaba la ii sheegan lahaa war maxaa ku galaayo rag waaweyn oo hoggaanka ka mid ay igu lahaayeen xaysimo dotcom ku gal waan galay laakiin waxaan ogaaday oo dhaba inaa xaysimo warbaahin naga bixisay horta marka hore xaysimo wax waraysoo siiyey ma jiro haba yaraatee wax warayso iga qaadeen ma jiro xaysimo waddankay leeday waddankay joogtaa waxa ka socday bay ogaayeen muxuu ahaaye xisbiga dhexdiisa aniga waxa iga weydiinaya waxaan ka idhi midna ma jirin laakiin raaya xaq u leeyihiin bay qoreen sidaan akhriyey waxay soo gaadhay inay qoreen waddani baa is haystaa anigoo waddani difaacaya haddii horta marka hore aada hayso wax ummadda u soo bandhig xaysimo waraysiga siiyey jaraa'idkana aroorta ku soo qor ayaguna ha yidhaahdaan uracaddaana siiyey ama xogayaha guud baana siiyey warayskaasoo noqon waxba kama qabo dembigeyga waan qaadanay laakiin masabidka intaa leeg iyo been abuurka intaa leeg iyo eedaynta iyo ceebaynta intaa leeg nin madaxweyne doonaya waa ku ceeb taa intaasaan ku daynayaa waa dhab laba goor baan hadlay labada gooreen hadlay mar xaysimo oo tiri waddani baa is haystaa difaacay talooyinna waan soo jeeday waxyaabihii aanu ku heshiinay na waxaan heshiiskaa hala fuliy gaboosana waxaan usoo qaatay waxaan u arkayey anuu aqoon baan u leeyay waan la shaqeeyey waxaan u arkayey inuu maanta buuxin karo inta ay waddani u baahan yahay waayo xisbi ahaan wuu guulaystay laakiin hoggaan ahaan buu dhacay kan gaboose u soo baxaqna waanuu leeyahay xisbigana waxaan ugu jiraa kolba ninkaan u arko inuu ku habboon yahay inaan idhaahdo wuu ku habboon yahay isagoo keliya maaha ilaa 15 nin baa ku habboonoo xisbiga ku jira laakiin tusaalaan usoo qaato isagoo abaal buu ku lahaa xisbigii ummadduu nagu soo wareejiyey in qofka intiisa la dafiro ay bir kugu noqoto oo ay ku gubto oo ay noqoto ninka gaboose soo hadal qaadaa cirka darab kaaga soo dhac waa ceeb waa muwaadin kula mida weliba dalka kaaga tacab badan intan anigu oga taas waa taa ta kale shirka golaha dhexe ee aad tiri hoggaan baa lagu doortay shirkii golaha dhexe waxaa lagu doortay number 1 murashaxiintii oo ahaa madaxweyne ku-xigeenkii iyo madaxweynihii waxaa kaloo lagu doortay hogaamiyihii iyo kusimihii guddoomiyaha ee xisbiga cabdiqaadir jirde iyo xise cali xaaji xasan labadaasaa lagu ansixiyey adiga iyo maxamed cali cabdina waa lagu doortay wax intaa ka badan horta laguma samayn hoggaanna laguma dhiso hoggaanka waxaa lagu sameeyaa iyo guddiga fulinta oo sharcigu bannaynaya waa shirweynaha halkaana waxaad moodaa inaad baal martee guddoomiyo saaxiib soo noqo sharciga dib waag ta kaleen kuu sheegayaa arrintaa beelo la ysku dhufto ood ku celcelisay ood dhowr goor ka hadashay waxaan u arkaa aniga somalilan way taqaana waxaan ahay waa loogiyo sharaxi maayo waxaan anigu markhaati ka inaad isku dayday in dalkani dagaal sokeeye galo maalintii doorashada in reerka garxajisi noo yeedhay si gobolnimo ay noola hadleen ay yidhaahdeen walaalayaal waa laydiga badiyey guul baad joogtaan kursigii maydaan gaadhin hambalyeeya ninka beddelay ee hadalkiisii isweydaaranayey dadkii dhiiggu ku dhacay dhulka dhiiggu ku dhacay keenay waa isaga waana hadalkiisa waxaan halkaa markhaati ka furayaa garxajis oo suldaan iyo labeentii iyo indheergarad iyo taajir u dhan inay yidhaahdeen walaalayaalow buuq dalkani uma baahna ayagoo dalkooga laxjeclo ka qaba ma aad iyo aada ugu ammaanayo weligeyna aanan iloobeyn meel walbana aan ka sheegayo waxay yidhahdeen walaalayaal dalkani buuq uma baahna kursi waxa ka weyn baa nagaga jira waana dalkayagii ma doonayno inay dhibi dhacdo dhiig baanu usoo horray nafteedoo dhan baanu u horray intaasoo dhan baa ummaddaas ay ku noolayd meel kaloonu tagnaa ma jiro hambalyeeya oo taga cidda beddeshay ee hadallada iswadaarka ee xanaftala abuurtay waa waddani nin ku jira garxajisa oo cabdiraxmaan nagu labaynayay muu jirin soomaalidu been bay sheegaysa aniga iyo raggan ku jiro oona halkan ka magacaabayn oo mas-uuliyiinta xisbiga ah ayaa taladaa lahayn laakiin annagu hambalyeya baanu nidhee ninka hadalka xanafta la raaciyey isagay u gaartay waana tii dhiiggu ka dhacay dhiiggaana waxaa la weydiinaya oo mas-uuliyaddeeda qaadaya ciray ku koobantahay waddanina kuma koobna somalilanna kuma koobna garxajisna kuma koobna garxajis bannaankaasuu yaallaa dalkan iyo dadkan waanu u soo dagaalanay waryaha hambalyeya bay yidhahda anigu ma doonayno buuq in maalin walba kursi lileeya loo abuuro taasna waa taa dad kale ayaan la wada eedaynin isaguse wuxuu isku dayey inuu beelaha isku dhirto laakiin xaggaasi ka suurtogeli weyday iyo xagganba aad iyo aad baan beelaha somalilan ugu mahadinayaa nin kursi doonayaa inuu kursi isku dhirto nin kursi doonayaa walaalayaal
aroorta fiinland tegaya oo baasaboorkiisu u go-aya oo tigirkiisu u go-ayahay yaanu carruurteennaa culaysiin anuu hadda waxaan ahay ninka kursigiisa lagu soo duulay waxaan beesheeda u sheegay oo aan taageerayaasheeda u sheegay oon ummadda reer somalilan gudayo dibadba u sheegaya arrintaasi inay ku kooban tahay ciro guddoomiyaha qof kaloo ku weheliyaa inaanu jirin oo beela oo kooxa oo cid kale ah waxay ku kooban tahay ninkaasi ayay gaar u tahay cidda jeebadda uu ku sitaana isagay gaar u tahay arrinka uu gaadhay inuu sharcigii dalka iyo sharcigii xisbiga ku baabi'iyo ninuu jeebadda ku rito uu ku beddelana waxaan u arkaa inay runtii tahay sharci darro laakiin waxaan ku celcelinayaa arrintaa socotaa isagay u gaar tahay reerkaa in badan baa la soo shaqeeyey waxaan ilaahay la hortegayaa inay yihiin reer gobol waar gob weeyaan waxaa kuma jiraan waxaa dadku wadayaan la wadin reerkaygan waxaa leeyahay anuu kursiga aniga cira annagaa xisbiga wada samaysanay haddii uu iga qaadiyo haddaanu iga qaadin idigana idigalamaan tashan cid kalena kalamaan tashan hadduu awooduu leeyahay ha iga qaado ha igu imanina nin igu yimaada ayuu jiri meesha waxaa yaalla waa arrin siyaasadeed in meelaha la geliye maha cidda soo gasha waa cid doonaysa wax kale oo xumaane maha cid wanaag doonaysa annaguna taa diyaaru ma nihin waxaanu diyaar u nahay inaan sharciga ku kala baxno waan dheereeyey arrinta guddiga anuu maan eedayn guddiga laakiin waxaan sheegay waa run way sheegeen inaanaan hadal laakiin waxaan u hadlay waxay ahayd markaan ogaaday inuu isagu shirkii 2 cisho dib u dhigay wuxuu soo wadaana ay ahayd wixii ay sheegayo wax ka sii fog inaan ummadda u sheego ujeeddada uu leeyahay inay caddahay oo ay tahay been kugu celiyaa ujeeddadu leeyahay inay caddahay oo ay tahay inanka jeebadda ku sitaan keene ama sidaan doonaan meesha u walaaqdee maxay ahayd toy ii soo qora eri runtii anugu nimankaa odayaasha maan ceebayn maan caayn nimanka hoggaanka waa walaaladay waa saaxiibaday qof keliya oo aniga xumeeyey oon eed ka sheeganaya ma jiro haba yaraatay guddigii ku jirtana maan durina ciraani ka daa faragelinta guddiga aad ku hayso waxaana ii caddaynaysaa cidiimay sheegine miseejku dib ugu dhigay shirka xaqna umu lahayn aniga guddiguna imay odhan hawl baa noo socotee dib iigu dhig anuu laakiin maan odhan kuma kalsooni maan odhan waa sidaa maan odhan waa sidaa laakiin waxaan arkaayey waxaa uu shalay akhriyayay gebagabadii walaalayaal waxaan idiin sheegayaa arrintaa waxa yeelayo anuu waxaan ahay xogayey guud shirweynaa laygu doortay shirweynaa laygaga qaadi kara wixii sharcigu mariyana waan ogolahay waxaa laakiin uu soo malmaluuqay shalay guddoomiya ciro wax dalkana ka jira xisbigana ka jira maaha laakiin waxaan ogolahay si nadiifa oo walaalnimo ah in go-aankayga dambe aan dib u dhigto taageerayaasheeda waxay iga codsadeen inaanu tashanno maxay hayto golihii dhexe xisbigu wuxuu iga codsaday inaan tashanno fulintii waxay iga codsatay inaanu tashanno waxaan jecelahay in wakti aan siiyo maadaama ummaddan aan xisbiga dadkii ugu horreeyey ugu baaqay aan ka mid ahay inaanan dulmin oonan cidna kaga dhaqaaqine aan tixgeliyo culayskooda markaa walaalayaal arrintaa iyo waxaan ka yeelayo iyo sidaan xogayanimadayda u wadaayo waxaan ka hadli doonaa ayaan dhow insha allah waana idin yeeli doonaa ummaddan waan u soo bandhigi doonaa aad iyo aad u mahadsan dadku waxay isweydiinayaan maxamed cabdillah warcadi waxaa tii xogeeyay xisbiga ayaad xaaskiisa ka hadla sheego oo laga qaaday ciro shalay wada amaanaysa waxaa la ciro hogaaminta ku haboon yahay xisbiga Soomaali weyn maaha sida ay sida maanta waxaa la ciro Soomaali weyn ku jira shalay iyo maanta waxaa la hadlay waa duushay heebaad saxanta awdi waxa weeye ayar waa su'aal fiican labaad gudida fulinta xaq moolay xaqiina ka qaado bismillaahir rahmaanir rahiim waa su'aasha hore waa ta dambe guddiga fulintu xaqna uma leh aniga shirweyne ay doortay cira imuu magacaabin kula dhexe imuu magacaabin shirweynihii laygu doortay xilka laygu saaray uunbaa laygaga qaadi karaa taa ummadoo dhan way ogta waraanu qaybinay xeerka waanu ku wada qoreeyay haddaa doorsan oo ku seego tan kale adeer aad weydiisay leedahay shalay waxaad lahayd xil cira waa Soomaaliland haa waan ku dhaaranayo laakiin aadamiga intaad marba ka taqaan baad sheegtaa anigu hadda xilka marka layga qaaday maaha xilka waxa ka qaadistiisa sabab u ah Soomaali weyntii aan difaacay oo iga daba hadlay isagaana waxaan ku aqoon cadeeyay anu maan cadayn anu halkaygii iga taagnaa ilaa imika waa la dabaqsanay
ninka somalilan oo lagu soo duulay sharcigii uu ansixiyey b wedku ansixiyey golayaasha qaranku ansixiyeen si badheedha u dafiraya ee taageeraya ra-iisul wasaaraha soomaaliya hadalkuu yidhi macnaheedu taas waa taageero si cadi buu taageeray si dadba buu u taageer isagoona somalilan ma bixin karto waa afkii uu ku hadlayay khayre isagaana hore u bixiyey muxuu yahay adaanku weydiiyey ninkaas صاحبك احمد مساد الحزب waxaa ka qaaday guddi fuliyo axmed muumin saad waa gudoomiye xigeen maad ka wad axmed muumin saad markaa saaxiibkay axmed muumin saad waxa ka qaaday waxa ka sagaarkiisa gareeyay markuu meesha ka soo wuxuu doonayay murashax buu doonayay murashax uu waay gudoomiyaha waa la bariyay ergaan ugu tagnay boqolaal qof baa u tagay annaga lahayn ninkaa laga daba tago oo bariyeynay isku awood baanu hayn laakiin ninkaas wuxuu ahaa nin ka tegaya oo meeshii wuxuu yaalla aanu jirin oo laga qaaday oo looga eexday oo aananaanu ku raacnay xashadii looga eexday maxamed cali oo tacabkii uu lahaa aanu ka horraysanay maxamed cali oo dunuubtuuna geliyey cirka ka mid aanu ku taageernay aanu ka xunnahay ka mida bay ahayd isaguu sii socday anuusan idhanna u socdaa xisbi kalena gelayaa wixiisana halkaa kaga dhaqaaqayo o cirka ka dhaqaajinayo go-aankeeda anaa dib u sheegi doona waa diyaar waan kuleeyahay ma dafirsaniye